صحابي والسلام وحلا اسكسونا قدوة ناكسة وميد شو وإذن له finally guriga way maada safar dheer kadib saaki markaa soo kac loo baan koray mad guriga of course saaki markaa soo kacno Facebook fiina waxa arag video la soo share gareeyay culimo Soomaaliyeed ee dawladda qodobo ee soo qaadatay uga soo horjeeda markaas ay aantan siyaasadda Soomaaliyeed saada uga mashquulsan safarka dheer oo kala tartada so waxay horta dawladdu waxa kula thank you so much ina finally ina soo saarteen qodobo looga hadlayo xuquuqda dumarka iyo carruurta Soomaaliyeed oo garab istaaga waa maalin walba dastuurka Soomaaliya markaa saan gadaal iyo hor u akhriyay waxa ogaad inuu yahay dastuur loo sameeyay ragga Soomaaliyeed ee ahayn dastuur loo sameeyay carruurta iyo dumarka ee dastuurkaas kaliya oo ku saleysan si ragga Soomaaliyeed inay wax walba wadanka inay naga xigaan oo kale so finally dawladdu waxay soo saartay laba qodob ee culimada iyagu akhrinayana dhageystay mid uu yahay in carruurta 18 gabdhaha 18 sano iyagoo ka yar aan la guursan karin dambi tahay hadii la guursado mid kale tan uu yahay hadii waalidiinta Soomaaliyeed ee carruurtooda wax ku sameeyaan ama kufsi u geystaan ama galmo u geystaan in dawladda ama hay'adaha carruurta ku shaqale ay xaq u leeyihiin in carruurtaas laga qaado okay culimada Soomaaliyeed waxay ahayd waa qodob gaalo laga soo qaatay horta culimada Soomaaliyeed aqli leeyahay oo tashanaa siyaasadda waa hore ka fariisanaa because dalkan godka uu ku jiro in ummadda la qarxiyo la qalo waxa gili iyagoo ahaan wayna ka soo saari lahayn so siyaasadda Soomaaliya horta in culimo wax ku darsata ma aha laakiin wax yar dhaho fikirkay krib hor dawladda Soomaaliyeed waxa la thank you ina markii ugu dambeyn soo xasuusateen horta carruurta iyo dumarka of course أنا دام بدحوينا waxaan dhii lahaa 25 sano gabadh iyago ka yar la guursado waa dambi aba dhii lahaa laakiin dawladdu wali oo naxariis 18 ku soo qabtay sababtu waxaan aragnay gabdho Soomaaliyeed oo yar oo mustaqbal wax baran kar oo heer gaarsiin kara 4 carruur 5 carruur lagu soo furay ee single mother ee carruurtiin ay sii dayacayn so in cunug lagu guursado 18 sano wixii ka yar iyadoo dhaqan gaali dhaqan kale aan loo fiirinay dhaqan bini'aadanimo ani hadda si bini'aadanimo isku wareersanaba okay iyadoo isu maxal dhaqan gaali dhaqan kale to la dhehaynin Madiina ka soo horjeeda Madiina oo kale inta aan la dhehaynin ani aad bini'aadanimo aan isku fiirsano bal ilaahay inta ka cabsana waxay aan wareysane 18 sano gabar ka yar oo maskaxdeed inay carruur tahay 18 sano xilliga jirsa u fikri jir maanta u fikirey ismala so in maskaxdaada horta inay korto ee markaa weynaata carruur dhashid adeed intaad kugu jirta laakiin 18 sano markaa jirtid waxa u baahan tahay waxa wali waxa maskaxdaada way yar tahay okay wali carruurata so adi marata markii 18 sano gabdho Soomaaliyeed oo carruurta intay niman waayeel arooseen carruurta lagu soo wada furay maxaa la carruurtii sorry gacanta ay daashideen maxaa la carruurtii isu sheeg la soo furay oo maxalla iga 18 sano ka jir intay niman waaweyn guursadeen nimankaas waaweyn maxalla isu sheeg carruurta gabadha ku soo furay gabadha 18 sano jirta afar cunug lagu soo furay maxalla carruurta ee si dayacantaa ee wadooyinka ee jiifaa cunugta aqliga ku korisa ee sanaysan nimankii weynaa ee waayeelada ahaa ee ka furay ee carruurta ka dhaleen ee meel cidla uga dhaqaaqeen way ku saxsantaa dawladda Soomaaliya inay tiraa bini'aadanimo ka Soomaaliya because waxaan waa mustaqbalka Soomaaliya so gabar walba 18 sano ka jirta hadii la guursado ee la ogolaado waa guurkeeda waa waajib loo dhahay la guursado 18 sano iyadoo ka yar loo guursado ee carruurta wadooyinka daadsan yihiin iyadana dayacanta aqooni aqli dhaqaale carruurteeda ku korisaysan iyadana isku dabartaysan mustaqbalka Soomaaliya mugtum ku jira mas kuma jiro laakiin ka war hadii la gabdhaha Soomaaliyeed ilaa 25 sano gaar oo inay wax bartaan dhisaan aqoontooda cilmigooda dhisa markii la san gabar gaartay ee guursatay carruur dhashay mees family qurux badan ka soo baxa oo ay aqoon leh dhaqaalahan isku filan aqoon ahaan isku filan carruur qurux badan mustaqbal cada inoo soo baxa laakiin inta gabdhaheena la guursanaa 18 sano ka yar of course mustaqbalkan mugdi ku jira because qof carruur oo aqli aqoon iyo inta waa ka dhisnaa ilmo dhasho of course ilmahaasna mugdi ku jiraan mustaqbalka sida hooyadood mugdi ugu jirta iyaga mugdi u jiraan so dawladda waxa kula ku saxsantay thank you so much waan idin ku raacsana waan ku faraxsana waliba ina final soo xasuusateen in xalahaye in carruurta iyo dumarka sharci loo soo dejiyo qodobka labaad aan leeyahay culimada Soomaaliyeed ugu xanaaqsan ee xitaa diyaar u yihiin fiiriya mid kamid hadalkiisa wuxuu yiri waa u dagaaltamayna waan u dhimanayna waan u jihaadayna ku in hadii hadalkaas la dhaqan geliyo so wuxuu diyaar u yahay fiiriya ninkaas أنا ما جلس مستعمال أنا كحد ديار وياها إن سوماليا هديسن قبلها يرير وسن جورسين كرين فيها دم وجهز مرجع فيري كنتون صنع لحدا كنتون وحساس وجرم فانده سو مركو حورة وفيري إنه قبلها سقيرة ذا جورسدو ومالح كجاجال الباب كوستجور أو أيه ونخنكر إنه شو كان سدو وضد ذو فرنا وحيري هدي الدولة الصومالي شرعي دخن جلسكوية وحن ديارنا إن وجهنا قولي من أوضة قالتنا سو هدوسن جورسين كرين كون أفرت من جرء هدوسن جورسين كرين كون شنو تمنجر وحد ديار ويا إنه صومالي دجال وجلي إلى إن سقيرة ذا مجورسين كرين شرعي
looga soo dejiyaa bal qofkaas aqligiis ila dhageysta idinkan ila fiiriya hadaa si bini aadanimo xitaa u hadalna maanta so ninka yiri hadaa 14 jir inaan shukaansa dawladda ay diid inaan dawladda dib u celiyo Soomaaliya dagaal dhig ka daadeen diyaar oo u jihaado inaan u dhinto liigu dilaan diyaar u ah kiye so qofkaas aqligiis intuu leeyahay u jeed Soomaaliya dagaal diyaar u ma adiga 60 jir iyo 50 jir cimrigaada oo sii dhamaano so keenana lama qaybsanaysa dhalinyar hadaan aan waa aqliyaysan hada nin walba oo maxaa waayeel cimrigiisa sii dhamaano markaas waa dalka inuu god ku siro dhalinyarada Soomaaliyeed inay fahanto warkiina ma qaadana sadaa culumatina taa siyaasiyiintii qof walba waayeel wax fiican kii wado welcome kii wax xun wado warkiisa waa hore meel isaga soo xirnay so wuxuu marka calaashan wuxuu yiri kuma sii jiray ya caruurta Soomaaliyeed ee qodobka labaad wuxuu hadii waalidiinta Soomaaliyeed caruurtooda ee dayacaan ama kufsi wax u geystaan in hay'adaha caruurta ku shaqada ama dawladda ay ka qaadi karto maalka of course hadii waalidka ay wax ku geystaan fiir cunuga caruurta hadaa horta goor bulsho caafimaad qabna hadaa rabno bulsho horumar isgaarsadaan waa in horta caruurteena si ku fiican u korina oo dhan aqli ka dhisna oo dhan maskax ka dhisna oo dhan aqoon ka dhisna waxa shaqaas aniga qaban karo waalidiinta qaban karo si waalidiinta caruurta sida loo dhalo ay yaqaaniin laakiin sida loo koriyo waa laga qaadaa of course because caruurtan waalidiinta dhaleen kaliya shaqo ku malahan waa mustaqbalka dalkan haddaan rabno Soomaaliya caafimaad qabto mustaqbalka inay sii jirto waa in caruurtan ku dadaalna soo hooy aad hadaa caruur dhalaysiin ka fikir caruurtan ma korin karteen dhan aqoon dhan maskax walba ma ka garab istaag karteen kadib dhal haddaadan inta sameyn karina marka hore idinka isdhisa intaadan qof bini aadan adduunkan aan keenina so midda ugu dambaysa alle waxay tahay وهذا الكي يكسو جبنا وورت دولة كنجر أو مهد على مرة وان كرب استعجنا قانكاس نينك يرينا هدي عروض سوماليات هدي ساس اللي يلا إن لو جهاد إنا أنت قلت ما ديار أرت هذا الكا قف لجزء نزم جد نجمع بكو ما دقي سنة محلها يجمد على وحدة هاي إن عروض هذا كوس أفكار أبى جبدي سكوسة أما أبى جبدي سكو حد قبل دولة حق أولاد وياك هذا سا لم بين أدني ما لن دين تشرع مال والبهلا فيري ولا ياك هذا عروض والدين سومال دي عروض دريالي كن بالفيريا بالمحاربنا إنا أرجنا عروض الصومالية ودوين كتشيفان أو دراجس استعمالا أو نلاش كده هذا أو محلها إذا شيء عن ذلك كان صومرك مستقبلك صومالي مجدو كجران هذا عرور دليسد هذا حد جاء كوجو كوا كل أنت هذا سيد دلين كوا حد يسد أنت سانك عنت أبو قبستي وحبرشوا هرمركوا ذا كل هذا هذا وليد دلين أنت هذا أذيك وحقبسنا عرور كلا أسكول وايو عرورة سومالية كلي عرورة دليس أذيك كلي شقكم ملي دل كان مستقبل كسوة عرورة شو دولة والبو سومالي قدرت نحقق أقول هذا إن عرورة دريا شو سي مستقبل سومالي لو بتبادئ لأن هذا بلش جاهلين إن هسنا حكدم بس عرورتي ونصو dadkan weyn oo arkis dha caruur ay ahaayeen soo ogeed iyago weyn lama dhalin iyago lugu i kacmalo war hadlay lama dhalin caruur ay aan soo hadii akhli loo soo yeelay caruurnimada wax loo soo bar la maanta muusan dhahayn fiiri ninkaas meel intuu soo istaagay yiri dhan diini dhan walba ka dhisanahay wax walba aqoonteeda la intuu yiri hadaa 14 jir iyo 15 jir inaan shukaansado inaan gursada la ii diiday waxaan diyaar u nahay Soomaali dhiig u daaday u jihaado u dhinta diyaar ninkaas caruurnimadiisa wax badan laga soo qaldo waa u jeeda soo marabna markii in dad noocaas oo kale ee Soomaali 100 sano hadda dhiman iyo 50 sano hadda dhiman ay ka sii jiraan marabna hadaa caruur dhaleesid ka fikir caruurta noloshooda ma ka soo bixi kartaa aqoontooda ma dhisi kartaa waxbarashada ma bixi kartaa nolol maalmeedkooda ma ku filan tahay caruur dhisana ma soo saari kartaa hadaa intaas awoodina dhashi dawladdu way ka qaadaysaa waan loo dhiibahay ada so culimada Soomaaliyeed oo hal tala idin siinaa aniga afariin waa horaan ka baxlay hal tala ugu dambaysa idin siinaa ka fariista siyaasadda Soomaaliya because waxa hadda Soomaali godka ku jirta kurida idinkii ahaay waana ka saari la adeehin ina god kale ku siirtiin artay soo hadaa 15 jirna shukansada dawladda ee sharcigaaga soo diido waxa diyaar u tahay inaa u jihaadad waxa maqla jir diina loo jihaad hadaa gur la ii diida hadaa 18 jir wixii ka yar inaan shukansada la ii diid inaa u jihaad diyaar oo shaq meesha soo istaagay hadaadan video daawanayna daawada idinka soo waxa idin leeyahay qeyr bantaanki Soomaali safarkayga hadaa ka soo laabtay kulligiin safarkii ina ila socoteen page-kayga xulbo meel walba joogo ku soo qoray waa wada ogsona YouTube channel-kayga subscribe because video-yaashan soo duub ilaa hadda ma idin kareen waqti u meeyni boo anasana because bil iyo laba bil ku dhawaadaan safraayada wili waa tahalna ma fahantay laakiin marka arko dadka qaar oo aqligooda iyo maskaxdooda intay gaarsiisan arko of course daalku way iga dhamaada siiba caruurta iyo dumarka anid dadka kale ila mid ma aha wadnayga qayb weyn ka tikeen هدارنا إنا بولشة نظيفة صوصان هدارنا Soomaaliya mustaqbalkeeda inay horumar gaarto hadaarna ina maxaa maanta sharaf xumada adduunka kule ana iska baabiina hadaarna waa ina caruurta hadda jirto iyo generationka dhalinyarada anaga kamid hadda jin waa in wax barashada lagu la dadaalo wax barashada adiga isku dadaal si biri caruur maxaa dhan walba ka dhisan Soomaaliya u soo saartay hadaa caruurta daryeel weysan caruurta ana dhaliya shaqo kula ma in caruurtan shaqo waa lagu leeyahay because mustaqbalka Soomaaliya hadaa daryeel weysan dawladda way ka qaadaysaa culimada waxa idin la idinkan 18 jir ka yar ma shaqaasinaysa oday intuu Yurub intuu ceerka aruursaday baxas qiiro soo guursaday warkiisa dhamaay
kii Soomaali jooga ee raba asoo 50 jir 60 jir oo madaxiisa ciro leh inuu maxalla ay soo sheeg gabdhaha masaakiin intuu ilmo ka soo dhadhalo uga soo tago war rag Soomaaliyeed ma wixii shadaama nin dhan oo ciro la wuxuu 40 jir darbiyada luuqada u taagaya markaas wuxuu leeyahay hadii maanta dawladda ay diiday in 40 jir shaqansad in u jihaado u dagaaltamo dhiig u daadaya diyaar دلنا سمال وركينا وقعت هذا كان كسوعين لا بقول مريكا قار بدن waxaad ilaa maxalla waa maasintiin kunjar video aan si share gaarsi culumada soo gaarto medical YouTube channelka xubbi fiyaaske ande xubbi show YouTube inta ku qorto subscribe calaamada badhankeena click si marka video soo geli xur kugu soo dhacdo warbixin waxaad ilaa qaar badan thank you